السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan dhammaan YouTube meel kastoo dunida daafiisa joogtaan waa walaashiin idibsan oo idin la subax wanaagsan xaggayga idinna saacad kastood ku sugantihiin ha idin wacnaato. Saaka waxaan rabaa video xamaasadiisa ya wata inaad halkan kusoo falanqaysaan oo rag iyo dumarba ku saabsan maaha dumar keliya maaha rag keliyata waayo anagu mar walba dhexdhexaad baan nahay. anigu marna ma dhihayo dumar baan aho dumarkaan raacaya marna ma dhahayo raggaan raacaya waayo ragga mar waan dhalnay mar wayna dhaleen mar waan u dhaxnay mar waa walaalaheen oo nala dhashay dee meelnaba ugama maqnin. marka bal videogan waa mid labadeennaba nagu saabsan inuu wiilka raggaana u dabranaado qof dumara ma fiicno gabadhuna inay nin u dabranaato ma fiicno. mar walba waxaa fiican inuuna qofna xadkiisa una soo dhaafin uu qofkan siinin inta uu ilaahay iyo aadamuhuba ugu talagalay waayo bila aadan baynu nahay haddaynu ka badbadino waxaa imanaya inuu kii dumar ahaana kugu tumato kii nin ahaana inuu kugu tunto dee dadkuna isku caqli maaha laakiin waynu u badannahayba ma garate. marka videogan ka faa'iidasho wanaagsan ka faa'iideysta waa video waxtar leh. marka wixii fikrad idinku ka qabtaan qaybta comment-ka waa inaad kusoo wada qortaan ayada oo qofna qof ataagarayn nin walba fikirkiisa saliimka ah ha kusoo qoro qaybta comment-ka insha Allah isla socod wanaagsan. haddana videogeena noo soo deynaya dhageysi wacan hadduu ilaahay raalli ka noqdo subscribe iyo like-tana waa xagiina mar walbana like-ta iyo view-ga isma leeka insha Allah mar walba idin sheegaa like-ta soo farabadiya insha Allah videogan meel dheer gaarsiiya waa inuu waatan hadda noo daaraya videogeeni dhageysi wacan insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورئيس كسو نقضي كورنتي وناكسن وحن مانتا بودكاستيغان كاقا هادلي دونا طبعا حد قدوب او قفكو او كوغولاد داقمو مركو اوغادو إنا جعشاي انتانا سيدي قود نولوشا مركا قف آد حرير لاي يرميسو اما حرير صاحبتين ما هنقضو اما حرير كي قوركا هنقضو اما حرير كي قوركا كهوري هنقضو حرير بمركا آد بني آدم لاي يلطو شكي مالهان إن خلافي مانيو إن لا يسنعي حالتها قار in mararka qaarkood khilaafkiinu uu gaaraya inaad kala dhimataan oo idaan dib dambe u wada hadlin. haddaba marka aad nolosha si guud u eegto dadka maanta aad saaxiibada la tahay ama dadka aad jeceshahay tusaale ahaan gabadhaad jeceshahay ama wiilkaad jeceshahay ama ninkaaga ama gabadhaad qabto markaad eegto ama xataa caruurtaada khilaaf in uu yimaado waa qayb nolosha ka mid a. khilaafka dadku badi waa meelaha isku bartaan. calaamado waxaa jira marka qaar qofka dabcigiisa iyo dhaqankiisa asalka tusaya oo uu soo caadaystay aana laga goyn karin. waxaana sida guud ahaaneed badan marka qofku uu yahay qof kibir iyo isla weynan uu ku jiro in dabeecadaha iyo dhaqanka uu leeyahay ay idin kala geeyaan waayo marna qofkaasu diyaar uma noqonayo inaad bedasho. haddaad wuxu sheegto qabka iyo kibirka ku jira ayaa ka hor istaagaya in uu qaato waxaan saxaneed u sheegayso. inta badan qofka kibirkaasa xataa wuxuu ka hor istaagaa markaad wax ku tirado xaaladda caradu ay idin dhex taalo in sidii hadalkaa aad tiri ugu yaraan uu u fahmo ama waa in hadalka uu kugu soo celiyo isagoo fasir xun oo ku yirahdo sidaa iyo sidaasaad ula dan leedahay waayo sida guud ahaaneed booskii uu kugu fahmi lahaa wuxuu qofkani ku jiraa difaac naftiisuu difaacaya. wuxuu moodaa wax kastood u sheegaysidba inaad adigu hadalkaaga ku toosinayso inaad hadalkaaga ku hagaagsanayso in dangooniya aad ku fushanayso adoo ujeedada aad u dan leedahay ama aad u socotaa ay tahay labadiinu inaad heshiisaan inaad isfahantaan qof walbaana bal aayir inuu hadlo. haddaba inta markaan kasoo gudbo xadgudubka u horeeya dadkuna siday u badan yihiin xiriirka bilowgiisa ay aqbalaan ama qaataan waa in qofku dhaqan xumadiisa uu adiga dusha kaa saaro. tan micnaheedu ma ahan inaad qofka dhaqan xumo ka baranayso dhaqan xumadii aad ka baratay markuu kugu arkana inuu kugu qabsanayo. tani waa tusaale ahaan in waxaad dhibsato qofka aad ka aragto wixii markaad tiraahdo waan dhibsanaya iga daa inay dood idinla gasho. doodaasu inta badan qofku wuxuu raadinayaa pointi inuu kugu helo. pointigaasu marka uu helo dooddu meeshii hore kasoo bilaabatay ama wixii aad tabanaysay way kasoo tegi waxayna dul imaan meel kale oo aadan adigu markii horeba u dan lahayn. tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo dhaqankan waan dhibsanaya kabacdina inuu ku meermeeriyo qofku oo isdifaac galo positive ma tihid qof dhaqankan leh sidee loola dhaqmi karaa iyo wax lamida. kulaylka marka uu kaa bato oo caradu ay kaa tan badato
in hadalla kulkulul ay kaa soo baxaan oo hadalladaa mid ka mida uu markaa dul istaago oo ku yidhaahdo fiiri hadalkaad igu tiri hadalkaas hore ee labadiinu aad wax ka soo bilowdeen meel aan ahayn baad isla tegaysaan waxaana dhacda 99% qofkaasu maadaama uu ogyahay inuu gardaran yahay maadaama uu ogyahay inuu dhaqan xumo kugula dhaqmay inuu hadalka kugu jaro kabacdina kaaga tago meesha adigu marka maxaad ka fakaraysaa hadalkii uu kugu qabsaday waanaad isku cusub tihiin waxaad rabtaa qofkan inaad ixtiraam meesha ugu dambaysay siiso waxaad rabtaa qofkan inaad xaq dhowrto waxaad rabtaa qofkan inuusan kaa tegin waayo wax walbaba waa kugu cusub yihiin dareenkii baa kugu cusub qofkii baa kugu cusub dhinac walba waxaana dhacda marka qofkaasu ugu dambayn inuu adiga naftaada aad aaminto hadalkii aad tiri inuu khalad ahaa wixii aad tabanaysay waadba ka tagtayba hadalkan kaa dhacay baad waxaad dareemaysaa naftaada inaad dulmi weyn geysatay haddaad aragto qof xiriir ku jira oo xiriirkiisu uu sidii gumaysigii oo kale uu yahay sidii la doono loola dhaqmayo wixii la doonaa lagu yiraahdaa markii la rabaa laga tagaa markii la rabaa loo soo noqdaa wixii la rabaa lagu eedaya wixii la rabaa laga aqbala haddaad aragto qof saa loola dhaqmayo raggii dumarku doona ha noqdo badi meesha ay ka soo bilaabataa waa xadgudubyada bini'aadamku ay iskula dhaqmaan ka mida oo qofku xiriirka bilowgiisa uu aqbalay xadgudubka labaadna wuxuu yahay in qofku uu kuu diido inaad samayso wuxuusan ka qayb ahayn tan micnaheedu waa haddaad meel aadayso haddaad qof raacayso haddaad cid wacayso haddaad meel wax ka soo cunayso haddii dana kale aad leedahay haddaadba aragto qofku 24 saac inaad isla hadashaan isla joogtaan maanta dhan qofku inuu kugu dhegan yahay haddaad aragto calaamadaasu maahan calaamad wanaagsan mana ahan calaamad tusaysa in xiriirka qofka aad la wadaagtaa uu caafimaad qabo waa laga yaabaa inaad aaminsantahay qofku waa ku jecel yahay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa geedkii orod lagu koro orod baa looga degaa haddaad aragto qof kalgacalka uu kuu muujinayo iyo jacaylka uu ku siinayo inuu xad dhaaf yahay waxaa ku xigta ka soo horjeedkeeda wayna dhici kartaa inaad maqashay ama adiguba aad la kulantay in qof uu qof kale jacayl xad dhaafa tuso kadibna uu kala noqdo ka gaabsado dad waxaa jira tactical isticmaala waa dadka low self esteemka badi waxay ku raaxaystaan noloshoodana dhammaystiran ku dareemaan in qof kale uu baryo in qof kale uu ooyaya oo maaragtay ciriiri nolosha ku jira oo iyaga maahane cid kale aan rabin inay arkaan waxayna ka soo bilaabataa isagoo su'aal kasta oo uu ku weydiinayo ama wax walba oo uu rabo inuu ogaadaba magaca uu u yeelaya ay tahay kalgacalka aan ku jeclahay baa iga keenaya waxa inaan ka warqabo waxaad cunayso meeshaad aadayso cidaad la hadlayso waxaad samaynayso inaan wax walba ka warqabo tan waxay keentaa in qofku gumaysi uusan ogeyn meel ka soo bilowday uu arko isagoo nolosha ku jira waxaana dhacda mararka qaarkood raggana way ka dhacdaa dumarkana way ka dhacdaa inaad aragto gabar ku oranaysa wiilkan la socdo ayaan weydiinayaa inaan saaxiibaday raaci karo inaan waxaa samayn karayo wixii la mid ah waxaana dhacda ragga qaarkood inaad ka maqasho isagoo ku oranaya waxaan rabaa gabadhan la socdo inaan ogeysiiyo haddii kale qoftu way ugu xanaaqaysaa fiiri gumaysi meel uu ka soo bilowday uusan ogeyn qofkaasu ayuu noloshiisa ku jira isagoo qofka kan aysan weli xalaal isu ahayn isagoo aysan guri wada deganayn labadooda qof walbaaba waa xor markan xiriirka ay ku jiraan dad badan baa waxay aaminsan aniga qof baa ileh laakiin cidina kuma lahan marka si dhab ah qofka aad u oran karto waa qofkaygii waa markaad xalaal isu noqotaan waa markaad reer dhisataan waa markaad isku guri kusoo hooyanaysaan intaa ka horeysa waxaan idhahdaa 90% labada qof waa xor wax walbana waa macquul inay dhacaan haddaad wiiltoo gabar la socoto iska filo 90% in gabadhaasu ay nin maanta wax ku dheer oo lacag haysta hadday aragto inay kaa raaci karto haddaad gabar tahay sidoo kale filo 90% in wiilkaad la socotaa mid kaa qurux badan hadduu arko fursadaasu ay la soo gudboonaato inuu gabadha kale kaa raaci karo wax la isku halayn karo ma ahan xiriirku marka hore waana tan aan iraahdo 99% ama 100% xiriir intaad isu dhiibto ha oranin kan waa kii aan reer ku dhisan lahaa waayo qalbi jabka iyo xanuunka ka yimaada kaasu muddo dheer buu saameyn qalbiga bini'aadamka ku yeesha marka qofka aad la socoto digtooni qab inuu kaa tegi karo ogow micnaheedu taas ma ahan inaan ku leeyahay qofka khiyaan oo qof kale ku dulwad oo hadhowdii ugu dambayn qalbigaagu hadduu qof kale raaco isaga intaad qalbiga ka jabisay ka tag waayo dadku nafsigaa ay inta badan kasoo urursadaan bini'aadamka kale ee cidlada uga soo tageen waxa ka gooyaa waa qofka marka dambe ay ku dambeeyaan haddaba naftaada digtooni qab qofkaan aad la socoto daacad u noqo wax walba oo aad ka tabanaysana u sheeg hana u ogolaanin qofku in wax walbaba aad gacanta u geliso
ilaa heer uu gaaro uu qofku furaha noloshaada uu noqdo. xadgudubka saddexaadna waa inuu qofku ku hanjabo. hanjabaadu labay noqon kartaa. inuu kuugu hanjabo haddii aad iga tagto ama qof kale iga raac ama si kale iga tag, adigaan wax ku yeelayn ama anigaan wax is yeelaynaya oo naftaydaan dilaya ama adigaan ku dilaya iyo wixii lamid ah. midda kalena waa haddii uu qofku kugu xiro ku yidhahdo waxaa haddaad samayso waan kaa tegaya. dhinac walbaba haddii la eego hanjabaadu wax wanaagsan maahan. hanjabaadu waxay tiir la cuskada u tahay qofka daciifka ah. haddaad aragto qof inta badan cagajuglayn badan waa qof daciifa. daciifnimada uu gudaha ka dareemayo ayaa waxay ka keentaa in uu ku hadlo hadalba hadalka uu ka cabsigelin og yahay, hadalba hadalka uu ka baqdin badan yahay. waxyaabaha runtii la yaabka badan ee noloshayda aan la kulmay arkay bayna ka mid tahay qof dumar ah oo ninka ay la socoto ka baqaysa inay ka harto, waayo waxyaabo badan oo ay ku nacday baa jira. masayrka xaddhaafkaabaa ka mid a, kontaroolkaa ka mid a, in uu gumaysi geliyey bay gabadhaas waxaan xusuustaa inay ka baqi jirtay. moogtay xaaladooda meesha hadda ku dambaysay, laakiin waxay ka baqi jirtay ninkaa hadday ka harto laba mid uun inay noqoto, ama inuu iyada dilo ama in uu isagu isdilo. taasaa waxay sabab ugu noqotay gabadhaasu xiriir aysan raalli ku ahayn inay kula jirto ninka. intaan social media ku jiray waxyaabaha aan qalbigayga marna ka foqin oo mar kastoo khilaaf ama qof uu tala isoo weydiiyey igu soo dhaca waxaa ka mid a gabar hadda kahor fariinay soo qortay, weliba bilowgii markaan social media ku cusbaabay ahayd. gabadhani talada isoo weydiinaysa waxay ahayd nin bay la socotaa, ninkan ay la socoto waa nin masayr badan. waxay tiri khilaafka iyagu intuu meel daran gaaray buu ii gacan qaaday heer waxaan gaaray uu gacantayga jabiyo. maxaad igula talinaysaa? waxaaniba wax caadiya, xataa ma fahansana in aysan arrintani caadi ahayn. dad badan baa waxay u haystaan qofka hadday jecel yihiin inuu siduu doono ka yeeli karo, wuxuu doonana kula dhaqmi karo. gabadhaasu waxyaabaha la yaabka badan waxay ahayd, waxay tiri ninkaa waa daryeela, wax haddaan haysta waan siiyaa, cuntaan xataa mararka qaarkood u kariya oo waa iskaabulo. eeg, meeshaasoo kale inaad naftaada dhigto haddaad nin tahay oo gabadha maanta aad la socotaa ay kuu gacan qaadayso, gabadhaas waxaas wanaagsan kuma noqonayso. intii arrintu ay xumaan lahayd oo berri rubadda ay midi kaa gelin lahayd, waxaa ku dhaanta maanta xiriirkeedina meel iska dhigto. haddii qofka masayrkiisu ilaa xad uu gaaro oo waxaa hor yaalla jajabinayo oo tuurayo oo caytamayo oo magacyo kuugu yeerayo, qofkaasu waa qof khatartiisa wata. ka digtoonow haddaad tahay qof naftiisa jecel, noloshiisana raba inuu nolol raaxale ku noolaado, raba in nolosha tan inta ilaahay uga idmay inuu macaankeeda dhadhamiyo. xadgudubka afaraad waa in qofku uu cadaadis kugu saaro waxa isagu uu ahmiyad siiyo inaad adiguna ahmiyad siiso. waxa uu jecel yahay inaad jeclaato, waxa uu necab yahay inaad nacdo iyo wixii lamid a. sida guud bini aadamku in rabitaankooda uu kala duwanaada waa caadi. marka labada qof uu xiriir ka dhaxeeyo oo ay rabaan inay reer wada dhistaanna, waa in kala duwanaanshahoodaas ay kulmin karaan oo ay heshiisiin karaan. shaki kuma jiro laba dhinacoo iska soo horjeeda in dagaal uu ka dhaxeeyo. haddii tusaale ahaan adigu aad wax jeceshahay inaad noqoto ama aad wax jeceshahay inaad samayso, waa in qofka aad nolosha la wadaagi doontaa uu raalli ku yahay waxan aad samaynayso. dadku badi marka la isguursado ayaa wax badanay soo baxaan, laakiin haddana waxyaabaha qaar waxaa jira qofka aad ka dareemi karto ama aad ka akhrisan karayso in uu raalli ku yahay in kale. waxaa laga yaabaa 8 bilood ugu horeysa, 9 bilood ugu horeeya inaad ka dareento waxan inuu qofku dhibsanayo. dadkaana qofka ugu qallafsan la dhaqankiisuna uu adag yahay waa dadka markay qof iskhilaafaan kugu yiraahda qofka ha la hadlin, aniga isaga dagaal baa naga dhaxeeya. haddii hebel ama heblaayo waan gartay adigii qofka waxa idinka dhaxeeya, laakiin aniga isaga maxaa naga dhaxeeya? maya, aniga isaga dagaalsan. waa sax, laakiin anigu adiga ma ahide, adigu qof kale oo gooniya tahay. markaasaa mararka qaarkood waxaa dhacda qofku inuu ku yiraahdo soo anu qofkan kumaan barin markii hore. waa sax, markaad i baraysay igumaad qasbin, laakiin hadda waxaad igu qasbaysaa qofka inaan la dagaalo, qofka inaan wejiga u bedelo iyo wixii lamid a. walaa taziru waasiratun wisra ukhra, nafna naf kale dembigeeda ma qaado. aniga adigu nolol bay naga dhaxaysa, waa sax, aniga adiga xiriir bayna ka dhaxeeya, waa sax, laakiin qofka iyo aniga wax dhibaata oo na dhex yaallaa ma jiraan. meeshan oo kale waxaa dhacda qofkii inaad isku khilaaftaan wuxuu rabay markaad samayn weydo. waxan uu ku leeyahay sameena maaha waxaad samayn karto, ama waa wax naftaadu ay necab tahay, ama wax naftaadu ay dhibsanayso, ama waa sidaa tusaalaha aan kugu siiniyo qof bini aadam waxba kuu dhimin inaad la dagaasho ama wejiga u bedashay wixii lamid a. taasoo dulmi kugu noqonaysa. xaaladaha qaar bay dadkan waxay la gaartaa cadaadiskoodu marka uu shaqayn waayo
in haddii aad gabar tahay uu ku yiraahdo wuxuuna uu wiil yahay in uu ku yiraahdo wiilka waad ka heshay baan u malaynayaa malaha waad jeclayd iyo wax la mid ah ama gabadhu inay ku tiraahdo malaha gabadha waad ka heshay baan u malaynayaa marka qofku ilaa xad waxay la gaartaa xadgudubkiisu uu adiga isku dayo inuu kugu qasbo waxaadan jeclayn ama aadan rabin qofka dhabta kuu jeceli kuguma qasbo waxaad necabtahay kuguma darqiyo waxaad diidan tahay agtiisa xornimo dhammaystiran baad ku darintaa waad la kaftantaa sirtaadaad ku aamintaa qofku haddii dadka qaar waxaa jira car hal mar soo fiiri ay ka tahay oo haddaad wax yar la kaftanto xanaaqa ay xanaaqaan 2 asbuuc islama hadlaysaan waxaana dhacda aana in badan oo dadka ka mida idinka digaya in qofku markaad la kaftantay kaftankaa uu ka xanaaqay dartii uu kaaga aamusay inaad faraha uga qaado waxay kaga fiican tahay inaysan jirin waayo qofkaas haddii beri xataa nolol aad wada wadaagtaan guriga mar walba waad is ilaalinaysaa waxaa tahay qof qodxanya ku dhex socda ma ogid midda ku mudi doonta waxaad iska ilaalin kaftankiisa waxaad iska ilaalin waxa aad oranayso waxaad iska ilaalin la farakaciyaarkiisa dhinac walba qofkaa waad is jiraysaa markuu guriga qofkaasu yimaado is ilaalin baad gelaysaa heegan baad ku jirtaa noloshaasu nolol ma ahan waa nolol cadaab ah qofka nolosha aad la wadaagto haddaadan la kaftami karaynin aadan wax walba oo maanta noloshaada aad la kulantay aadan la wadaagi karaynin dee noloshaasu nolol noocee ah bay noqonaysaa kamana hadlayno waxyaabo qaar waxaa jira qofka aadan la wadaagi karin marka aad isla socotaan laakiin waxyaabo qaar waxaa jira haddaad la wadaagto qofkii waaba xanaaqayaaba haddaad aragto qof xanaaqiisu uu dhow yahay waxaad ogaataa berina xanaaqiisu saasuu noqon doonaa welibana marka nolol la isku darsado oo labada qof ay reer noqdaan dulqaadku aad buuba ugu sii yaraadaa inta la wada socdaad baa moodaa dadku inay ka dulqaad badan yihiin markay xalaal isu noqdaan oo ay reer dhistaan meeshii la rabay in marka reer la dhisto dulqaadku uu badnaado inta la wada socdana dulqaadku inuu yaraado haddii marka inta qofka maanta aad la socoto dhaqan xumadiisa dulqaadka aad u haysaa uu badan yahay waxaad ogatahay inay kuu dambayso maalin qofkan dhaqan xumadiisa dulqaadkaad u haysaa uu aad u yaryahay xadgudubka shanaad waa in qofku uu kugu yiraahdo hadallo ujeedadoodu ay tahay inuu kalsooni darro kugu abuuro si kale haddii aanu yiraahdo inuu ku yaso hadallo yastin tusaya hadallo inaad liidatid inaadan qofnimadaada u qalmin iyo wixii la mida tusaale ahaan markaad wax isku diidaan haddaad tiraahdo ani adigu isma keeni karne aynu isdayno inuu ku yiraahdo ma adigoo sidaas yaa wax kugu falaya ma adigoo dabeecaddaa leh yaa ku hayn kara anaaba yaa allah yaa naf kugu haye dadka qaar waxaa jira hadalkaasu qalbigooda intuu dego saamaynta uu ku yeesho ay sabab ugu noqoto qofkaa dhaqanka xun kula dhaqmaya inay la sii joogaan inta badanna dadka qaar waxaa isugu taga 2 arrimood kow markiisii hore oo qofku uu nusqaan dareemayay uusan aaminsanayn naftiisa kalsooni darro ay ku jirtay uusan isu arkaynin in haddii qof uu ka tago qof kale uu heli karo in nolosha uu meel mari karo in qofkan la'aantii uu noolaan karo iyo wax hadalka qofkaasi uu yiri kamida oo uu aamino sababta keenaysa wax kamida qofka hadalkiisa inuu aamino inta badan qofku wuxuu ku saleeyaa intanoo sano qofkan isla soconay ee xiriirka isla lahayn hadduuba saa leeyahay ma dadka kale ayaan beri arki doonin waxa qofkani hadda uu igu sheegayo xadgudubka 6aad waa inuu qofku sabab la'aan cara ku muujiyo xaaladaha qaarna ayba dhacdo inaad raali geliso adoo noqonin sababta xataa aad u raali gelinayso waxa uu ka caraysan yahay dadka qaar waxaa jira genius ka kacan si uu joogaanba waxaa arkaysa isagoo qofku dudaya ama isagoo xanaaqsan ama waad wici caru kaala duldhici ama igama haysa inaan kula hadlayo wax lamid ku oranaya markaad aragto qofku inuu caraysan yahay aadna ogtahay inaadan adigu waxba u geysan naftaada waxaad bartaa sidaad doontid u jeclow inaadan qofkaa raali gelin waayo waxaad u geysatay ma jiraan waxaad u dhintay ma jiraan haddaad raali geliso oo tiraahdo raali noqo malaha anaa wax kuu dhimay malaha telefoonka kaama qaban malaha fariintaadana kasoo jawaabin ama anigu adigu eedaasoo dhanba dhankaaga ha u jeedinin waxa uu la caraysan yahay isagoo ha kuu sharaxo dadka ugu adag in lala dhaqmo ugu qallafsan waa dadka iska duda waxay la dudayaan xataa aan la aqoon gurigaad sala joogtaan waa dudaya qofkii kulama hadlayo waxaad u geysatay ma jiraan adaa is og inaada qofkan waxba u dhimin mararka qaarkood baa tuhma ku galaysaa oo waxaad isweydiin talow amaan wax geystay markaasaad weydiin markaasaa si carale lagugu jawaabaya wax ay kaga fiican tahay ma jiro inaad qofku marka uu ku yiraahdo waxba iima aadan dhimin hase yeeshee uu hadalkiisa cara ku jirto inaad telefoonka tiraahdo hay khayr baan ku rajaynayaa
ama qofka markaa haddaad xataa nolol wada wadaagtaan waxay kaga fiican tahay ma jirto inaad ka aamusto ood faraha ka qaado ilaa isagu uu kaaga yimaado oo kuu sharaxo wixii haystay laakiin inaad adigu isa saarto dulmi iyo xadgudub ka weyni ma jiro ood naftaada u geysanayso inaad eedaadan lahayn aadan aqoonin xataa meelay ka timid si qofkan aad u raali geliso inaad adigu naftaada isa saarto xadgudubka toddobaad waa in qofku mar walba kuu muujiyo in baahidiisu ay baahidaada ka muhiimsan tahay adiguna aad aqbasho raalli ku noqoto runta jirtaa waxay tahay qof walbaba baahidiisu tixgelin bay mudan tahay baahida qofkaygu waa baahidayda anigu baahida aan qabana waa inay sidaasoo kale isaga u noqoto haddii taasu aysan jirin ilaa reer maxaa lagu dhaqaa marka beri la isguursado waxaa lagu dhaqaa waa isfahan waxaa lagu dhaqaa waa naxariis waxaa lagu dhaqaa jacayl keliya ma ahan jacayl keliya haddii reer lagu dhaqayo dad badanoo isjecel baa kala taga maalin walbana isfura iyagoo isjecel bay kala tagaan taa ma dhici kartaa inaad aaminto waa laga yaaba inaadan aaminin oo tiraahdo macquul maaha laba qof oo isjecel say isu furan dad badanoo isjecel baa isfura waxaa lagu kala tegayana waa naxariis darro waa inaan la isfahmayn iyo wixii la mid ah xadgudubka sideedaad waa in lagu khiyaano adiga lagugu eedeeyo aadna aqbasho aana kuu faahfaahiyo waa laga yaaba inaad la yaaban tahay dadku khilaafka ma dhammaadaan 2 asbuuc baad qofkan kala aamusnaydeen xiriir kalooba iska bilaabayba isagoo og inaydaan kala tegin ee waxa aad hadda ku kala maqan tihiin caro un keliya inay tahay buu qofkii waxaa laga yaabaa qof kale inuu xiriir la galo markaad qofkii isku soo noqotaan ama adigu wac ama isagoo ha ku soo waco in aad ogaato qofkani intii aad kala maqnaydeenba inuusan wax yar xataa u kaadin oo qof kale xiriir la galay adiga marka lagugu eedeeyo oo lagu yiraahdo adaa isoo wici waayey meelaad ka baxday baan garan waayey kadibna waxaan moodayay inaad iska dhaaftayba xiriirkan dhanba anigana taas ay ugu kaliftay inaan qof kale xiriir la bilaabo adiguna markaa aad tiraahdo anaa gardarnaa anaa khaldanaa qofkan hadda xiriirkiisa ma jari karta iyo wax la mid ah meeshaasoo kale weligaa ha ku gorgortabin qofkaasu markii horeba si dhaba kuuma jeclayn hadday dhab ka tahay wuu ku soo raadin lahaa fariimihiisa aad arki lahayd wicitaankiisa aad arki lahayd iyo wixii la mid ah cudurdaarka badi ay la yimaadaan waa inay ku yiraahdaan buuqi baa iga batay waa iskaa ilowsiinayay iyo wixii la mid ah laakiin waxaan ognahay qof kastoo wax jeclaadayna tan waa igu raaci doonaa qofku markuu ilaa xadkaa joogo jacaylkiisa aad si dhabana u jeceshahay way adag tahay in qofka aad si dhaqsaa inaad isu ilowsiiso aad markaba raadiso xiriir kaloo cusub qofku inuu bilaabaa sida caadiga marka qof uu si dhaba u jecel yahay ay kala dhammaadaan bil 2 3 intaa ka badan bay dadka qaar ku qaadataa laakiin 2 asbuuc baan kala aamusnayn horay baad xiriir kale ka bilowday taa micnaheedu waa markii horeba qiimo kuma aan lahayn waayo haddaan qiimo agtaada ka leeyahay meeshaad qof kale wacayso ama qof kale raadinayso anaad isoo raadin lahayd taasaa i tusaysa in aadan markii horeba i jeclayn meeshan oo kale haddii naftaada aad aragto inay taagan tahay weligaa ha ku gorgortamin meel qiimahaaga iyo qadarkaaga qofnimo aan lagu garanayn xadgudubka 9aad waa in qofku uu ku kontrolo isaguna uusan ogolayn micnaheeda siduu kuula dhaqmay inaad adiguna ula dhaqanto ah inaad kontrolsho laakiin midda nigaho in layskontrolaa ma fiicna nolosha guud ahaan caafimaad uguma jiro sida guud ahaaneed danta kuma jirto haddaad rabto qof inaad ogaato midabkiisa saxda waa loo seeta dheeraya muddo dheer ha iska joogo wuxuu doona ha qasto kolley waad ogaan doontaa waxaan anigu aaminsanahay in qofku xornimadiisoo dhammaystiran aad siiso laakiin maalinta aad wax ku qabato inaad qof go-aan adag tahay oo aadan noqonin qofkii haddaan ka soo hadlayay meel liita oo jilicsan oo rafaad iyo silic uu qofku damiirkiisa iyo dareenkiisa uu ku marayo inaadan qaadan oo aad qofkii tiraahdo khaladka aad ii geysatay sidaan inaadan ka daba calaacalin waan ogahay qalbigu waa ku xanuunaya waad qalbi jabaysaa waad ilmayn doontaa laakiin taa micnaheedu marna maaha inaad qofkaa u muujiso sida ugu habboon waa inaad siba sida ay ka adag tahay aad qofkaa u muujiso oo tiraahdo soo imaad khiyaan adigu maad dooran waxaanaad samayso haa ani adigu isma naqaan go-aankaagana waa inaad ka dhabayn karto qofkaa cashar u dhigi karto xisaab ma leh inta qof ila soo xiriirtay oo rag iyo dumarba leh oo la khiyaanay markaan tala siiyo ku iri qofkani hadduu marku khiyaanay mar kalena wuu ku khiyaani doonaa ugu yaraan haddaad ku laabanayso iska sii ogow in qofkani uu haddana dhaawici shalay uu kuu geysan doono aan i dhegaysan laga yaaba inaysan dib iigu soo jawaabin xiriirkii inay dib ugu laabtaan qofkii beentiisii haddana uu ka gado aaminaan muddo ka bacday ugu soo noqdaan oo yidhaahdaan qofkii waagii aad igala talinaysay
mar iyo labo iyo saddex kaloo ka dambeysay buu khiyaanay. anigu waxaan idhaahdaa qof markaa wixii ka dambeeyey waxaan idhaahdaa qof markuu tale isoo weydiiyo yidhaahdo qof baa khiyaanay, khiyaanadii qofkaas uu ii geystay muddadii aan soo wada soconay baan ka samri la ahay. waxaan idhaahdaa haddaad rabto qalbigaagu qofkaa inuu si dhaba uga go'o mar labaad dib ugu laabo ilaa uu ku khiyaano oo khiyaanada uu kuu geysta dhaawaceedu uu ku gaarsiiye heer aad ka go'do kama go'i doontid. xadgudubka tobnaadee ugu dambeeya waa in qofku uu ku daandaansado. waxaana inta badan tani ay dhacdaa marka qofku uu wax maagan yahay, waxbuu rabaa inuu sameeyo. si ay arrintaasu ugu suurta gasho ayuu horta adiga kaa caraysiinaya. wixii aad ku kala aamusi lahaydeen oo uu booskaa firaaqo ugu heli lahaa uu waxaa ku fuliyo ayuu horta raadinaya marka hore. tusaale ahaan marka ninku gabadha uu la socdo ay rabta inay nin kale la sheekaysato ama inay casho u raacdiyo wixii la mida, waxaa bilaabata in ay ku daandaansato. daandaansigaasu noocyo badan buu ku yimaadaa, laakiin dhowr tusaale haddaan ku siiyo. tusaalahaan waad wacday, telefoonka lagaama qabanayo, fariimaad u qortay, waa la akhriyey, laguma soo jawaabin, adigu waad xanaaqi. markaad xanaaqdo, waana tan aan idhahdo rag badan ha xanaaqin, isdeji. meeshan oo kale markaad aragto in fariintaadii la akhriyey aan lagaga soo jawaabin, telefoonkana dabcan haddaad wacday way arkaysaa koolka inaysan kaa qabanayo wixii la mida. mararka qaar waxaa laga yaabaa telefoonadan Samsung inay sheegaan qofku inuu telefoon ku jiray wixii la mida. waxyaabahaasoo dhan iska dhagatir, iska indhatir, haba xanaaqba ha u muujinba. adigu waxay noqotaba waxaad arki doontaa arrintii aad mudnayd inaad ka xanaaqdo ma ahane arrin kale in ay cara ka timaado oo buuq ka dhasho. waxaana inta badan dhacda, waana laga yaabaa gabdho badan markay meeshaan maqlaan inay oran doonaan anigu sirtaa maxaad nooga fakisay, in si ninka ay fursad u siisaa caawa ay telefoonka kaa dansato ama ay ku baloogto. qiso yarna aan kaaga warramo oo weliba gabadha iga warramaysa ay tahay qofkii iyadu sameeyey waxa kan. waxay tiri nin baanu muddo wada soconay, nin kalaan dib ka bartay, kii dambaa wuxuu iga codsaday inaan casho u raaco, kii kalena waa ballansannahay caawa. si aan u kala leexiyaan garan waayey. waxaan ila bay tiri caawa calooshaa layga hayaa, waan xanuunsanahay, meelna ma aadi karo. telefoonkaygana waxaan uga tegay bay tiri qof guriga jooga oo waxaan idhi aniga iska kala dhig, haddii fariimo soo dhacaan u jawaab. ninkan nin caqli badan buu ahaa, fariimihii qaabkay u qoran yihiin buu ka shakiyey. waa soo baxay, gurigii buu yimid, waa laga furay, heblaaya maaday, meel dhow bay gaartay, waa soo noqonaysaa baa lagu yidhi, waan sugayaa buu yidhi, waa fariistay ila inuu shaki baxuu rabaa. isagoo bartii fadhiya waxay tiri meesha igu naxdinta badnayd waxay ahayd anoo ninkii kale casho intaan ka soo noqonnay isla dadka guriga jooga bar anoo qoslayo oo faraxsan in albaabkii soo furo, qofkii ugu horreeyey isha aan ku dhuftaba wuxuu noqday isagii. ninkii kalena gadaashaydu taagan yahay, albaabkii kulligay waanu isfiirinaynaa. haddaba marka waxaan ka wadaa marmarka qaarkood dumarku markay rabaan inay wax suuro geliyaan, ragga qaarkood xataa way sameeyaan, markay rabaan inay arrin fuliyaan in ay ku daandaansadaan, waxaan la aqoonin inay kugu qabsadaan, wax horoo laga soo tegay inay soo celiyaan, dagaal meeluu ka bilowday aan la aqoon inay hilfaha kugu laabaan, telefoonkana kaa baloogtaan, kaa xirtaan, ama aysanba kaaba qabanba, si ujeeddada ay leeyihiin ay u fushadaan. haddaad dhaqankan aragto ama aad ka shakido, waa laga yaaba dadka qaar inay yidhaahdaan anigu qofka meeshuu joogo ma aadayo, maxaa ay daba dhigay iyo wixii la mida. laakiin waxaad ogataa qofkaasu haddaad og tahay inuu ku gardaraysanayo, mar walbana wax soo noqnoqonaya ay tahay, daliil cad waxay u tahay qofkaasu inuu ku khiyaanayo. inta khiyaanada uu fulinayo ayuu kaa maqnaanaya, maalinta dambena inta badan isagaa ku raaligeliya. haddaba dhammaantiin intaynu podcast kale dib ugu kulmayno hadday naftaydu gaarto, والسلام عليكم ورحمة